waa maxay KGB maxaase aad looga baqi jiray KGB waa hay'addii sirdoonka ee midowga Sofiyeetiga waxaana macnaheeda laga soo gaabiyey guddiga amniga qaranka waxay hay'addani mas'uul ka ahayd ammaanka itixaadkii Sofiyeetiga iyo sirdoonka dibadda waxay hay'addu shaqaynaysay intii u dhaxaysay sanadihii 1954 ilaa 1992 markii itixaadkii Sofiyeetiga uu burburay waxaa beddeshay magaca la soo gaabiyey ee ah FSK kadibna waxaa loo beddelay FSB oo iminka ah hay'adda sirdoonka Ruushka labada hay'adoodba waxay u shaqaynayeen sida KGB inta ay shaqaynaysay KGB waa ay ka duwaneed hay'adaha sirdoonka ee dalalka kale ee caalamka waxay ahayd hay'ad dawlad oo madax bannaan oo aysan maamulin ama hoostigin madaxda dalka waxay hawsheeda ahayd kuwa badan oo isku dhex jira oo ay ka mid ahaayeen sirdoon aruurin ilaalinta xuduudaha iyo hirgelinta propagandada balse waxa ugu daran ayaa ahaa hay'adda waxay u shaqaynaysay sida booliska sirta ee Sofiyeetiga oo hawshiisu ay ahayd sirdoonka gudaha dad gaarayay nus milyan qof ayaa u shaqaynaya hay'adda KGB oo ay ku jireen 10,000 oo ahaa jaajuusyo caalami ah oo u dhashay dalal kale oo dunida ku yaalla KGB waxay ahayd xilligii ay jirtay hay'adda ugu awoodda badneed ee sirdoon ee caalamka ka jirta daafaha dunida hay'adda KGB waxay ka soo aruurinaysay xogo sirdoon oo ay u maraysay hab sharci ah waxaana u joogay wakiilo aan la filan karin in ay u shaqaynayeen hay'addan faylal uu dawladda Ingiriiska u gacangeliyey nin diiwaanka u hayay hay'adda 10 sano balse 1992 isku dhiibay safaaradda Ingiriisku ay ku leedahay dalka Latvia magaciisana uu yahay Vasily Mitrokin ayaa waxaa ka soo muuqday magacyada shakhsiyaad dunida magac ku lahaa oo aan laga fili karaynin inay ahaayeen wakiilo basaasiina oo ay lahayd hay'adda KGB waxaa faylasha Mitrokin laga qoray 3 buug oo kala ah The Sword and the Shield oo la qoray 1999 iyo The Wall Was Going Our Way iyo The KGB and the Battle for the Third Wall oo la qoray isagana 2005 dalkeena Soomaaliya magacyada liiska ninkani oo dunida iminka looga yaqaano filashii Mitrokin waxaa ku jiray Salaad Gabayre oo ahaa aabbihii kacaanka afgambigii dalka ka dhacay 1969 wuxuu hay'adda u ahaa wakiil sirdoon oo Soomaaliya uga shaqeeya iyada oo magaca sireedka ugu qornaa hay'adda uu ahaa The Operative ama hawlfulihii sida ku cad faylasha Mitrokin waxaa jira tuhno ah in dilka Gabayre ay suurtagal tahay in isla Sofiyeetiga in ay ku lug lahaayeen oo arrinka uu ka weynaa kacaankii dhexdiisa waxa uu isku haystay KGB aad ayaa looga baqi jiray gudaha Sofiyeetiga oo ciddii looga shakiyo shuuci nacayb ayay xiri jireen guryaha dadka ayay baari jireen waxay hay'addu lahayd qayb u qaabilsaneed la dagaalanka dadka diimaha ku fogaada iyo waddaniyadda waalida ah xitaa KGB waxay dagaal la geli jirtay hoggaankii Sofiyeetiga ee looga shakiyo in uu halis ku yahay siyaasadihii Sofiyeetiga 1960 hoggaamiyihii la oran jiray Nikita Khrushchev ayaa hay'adda afgambi aan ku daadan talada kaga qaaday waxayna ku beddeshay Leonid Brezhnev balse isku dayo kale oo hay'addu ay ku doonaysay in ay ku samayso afgambi ayaa fashilmay 1991 kadib markii 2 cisho la xiray Mikhail Gorbachev oo ahaa hoggaamiyihii ugu dambeeyey ee Sofiyeetiga inkastoo afgambigaasi oo fashilmay haddana waxaa la rumaysan yahay in KGB ay ka dambaysay KGB waxay ahayd hay'ad laga baqi jiray kadeedna ku haysay Maraykanka intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee dunida inkastoo hay'adda la kala diray markii uu burburay midowga Sofiyeetiga madaxweynaha Ruushka ee xilligan Vladimir Putin wuxuu ahaa qudhiisa sarkaal ka tirsanaa KGB laga soo bilaabo 1975 ilaa 1991 haddaba waxaa la isweydiinayaa KGB guud ahaan ma baaba'day mise weli raadadkeeda ayaa jira